waxaynu ku jirnaa habeenadii ugu dambeeyay bisha Ramadaan ee barakaysan. bisha Ramadaan haddii aynu calculate garayno maxaad soo shaqaysatay, maxaad cibaadadii, salaadihii, sujuud, rukuuc, soon, laqwigii inaad ka fogaatay, waxyaabihii bisha Ramadaan oo dhan inaad yaraysa ahayd, xan iyo wixii la mid ah inaad yarayso, maxaad yaraysay? waxay noo soo baxaysay inaan waxba shaqaysan. hadda eeg, Ramadaanna way tagtay, bye bye. kii aan soomi jirina ma sooma bye, ma 29 baa tagay weeyaan caawa. si kastaba bisha Ramadaan haddii bilo badan ilaahay ku soo mariyay oonad ka faa'iideysan, waxaad iskaga ducaysataa bal haatan in bil Ramadaan oo kale ilaahay ku soo mariyo. dad badan oo Laylatul Qadrigii ajashoodii la soo saaray inaanay dib u soo laabanayn, oo malakal mawdka loo soo dhiibay ajalihii sanadka uu goynayay ama ilaahay oofsanayay, maadaama malag walba hawl sanadeedkiisa loo soo dhiibay xilligaas. oo waa kan ilaahay fiiha inna anzalnahu fi laylatin mubaaraka inna kunna mundirin fiiha yufraqu kullu amrin hakim. eegada malaga ayaa loo soo dhiibaa sanadka wixii malaga arsaaqda wixii arsaaq bixinayo, malaga roobabka meeluhu ka diinayo roobka intuu bixinayo diinayo, malakul mawdkana waxa loo soo dhiibaa intii ajal marka birta saaran sanadka. waa laga yaabaa inaad ku jirto adigani daawanaya, waxaad ku celcelisaa laakiin allahumma أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وقد تحقق لنا ما نصب إليه ونرجو من القوة والعزة للأمة الإسلامية. إله النوسو علي رمضان بدن، إله النوعاف ما قبل النوسو علي ووحان رجينا إنه يقول إن إسلام كإلهي عزيو آنو حقيقنو إله رمضان بدن نوسو علي. إله رمضان بدن هاينا كل ميو تنا حساب تارا markaad isku geysataa hadii ilaahay chance labaad oo Ramadaan dambe ku siiyo adigoo caafimaad qabo nool, xasuusnow waa sanadkii hal mar laga faa'iideeyo. ilaahayna tan khayrkeedii hayna waafajiyo, hana inaga dhigo ku naara ka xoreeyay.